mas'ala yar oo wajeer inay ku soo noqoto aanan rabin inaan ka hadlo horta bil Ramadaan baa lagu jiraa ruuxa bini'aadamka bisha Ramadaan markuu ku jiro inuu Ilaahay ka cabsada la rabaa waa bisha ugu rajaro yahay ruuxa dambigiisa in la dhaafo haddii uu dunuub la iman waaweyn oo kabaa'ira waxaa jirta maalmahan tarbaj iyo ceeldhaas hadalla aanan jeclayn ama siyaasiyiinta waaweyn ha noqoto ama odayaasha dhaxdoodaba ha noqotee hadal xanaf leh oo labada ummadood dhaxdooda dib keeni kara yaa lagu hadlaa waxaan leeyahay oo u jeedinaynaa Ilaahay ka cabsada dadka degan tarbaj iyo dadka ceeldhaas degan walaalo way diinta walaalaysay dhalashada walaalaysay waa isku meel war Soomaalida annaga maalin dhaweyta soo dhaxmaray tarbaj oo dhan ana soo maray ceeldhaas ana soo maray wajeer western ana soo maray war dadka hada dulka barto waa iska cidla dadba joogo war Ilaahay ka cabsada dhulka waxa weeye waa nagu filan yahay dad kale oo nagu soo duulo meel kale noolgana ma yahay ceeldhaas cidda degan iyo cidda degan tarbaj waa walaalo alla walaaleeyay waa jiiraan way wada dhasheen dhalashadii loo kaco way wada dhasheen marka kuwa raba inay isku diraan oo ay fadhaxdooda ka beeraano waxaan leeyahay Ilaahay ka cabsada hadalka xanafta leh ee qoonta keeni ee qolada kale ay qoonsan kartana iska ilaali hadal aad tiri haday aafa ka kacdo oo dad ku dhamaadaan ama dad isku dilaan inta isku dishay dambiga ay helaan qaybaad ku leedahay waxa la rabaa inaan iska ilaalino waxa soo kale Ilaahayna waxa ka baryaynaa qalbigooda inuu isu soo tubo kuwa siyaasiyiinta waaweyn wali waxa leenahay Xuseen Cabdi Barre ninka la yahay baarlamaanka ku jira iyo aadan kaynaan meesha wixii ka halaabo mas'uuliyada Ilaahay maalinta qiyaamada labadii naas idin weydiini idinka magaalada dhulka madaxwa labadii niba hadal la isku tuurtuuraya waxa isaga loo baahna wajeer uma baahna dadka tarbaja uma baahna dadka ceeldhaas uma baahna midnimiya walaalnimo u baahiyeen hada wabillahi tawfiiq